maxay tahay sababta uu Turkigu ugu nugul yahay dhulgariirkan aadka u xun? Gobolka waxa uu ka mid yahay aagaga dhulgariirka uu ka dhici karo, sababtoo ah wuxuu ku fadhiyaa qaybo dhuleedka aadka halista u ah ee Anatolian Tectonic. Waa meel khatar ah maadaama ay ku dhex taal laba dhul oo waaweyn, waa Euro-Asian iyo Africa. Khubaradu waxay leeyihiin marka labadaas qaybood ee dhulku ay dhaqaaqaan, Turkiga waa la isku soo riixayaa. taasi waxay ka dhigan tahay in gariirka ama ruuxanka ay caadi yihiin. waxaa 2022 oo kaliya la diiwaan geliyay in ka badan 22,000. dhulgariirka oogada sare ka dhaca waxa uu ka waxyeello badan yahay kan ka yimaada salka hoose. kuwa hore u dhacay ayaa aad loogu dhintay. dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.6 ee dhacay 1999 waxa ku dhintay dad ka badan 17,000. suuragal ma ahan in la saadaaliyo xilliga saxda ah ee dhulgariirku u dhacayo, balse waxaa macquul ah in dalalku ay sii qorsheeyaan.